ugu horreyntii ku soo dhawow balkeena aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa inaad ku bilowdo maadaama barnaamijkan ay daawan doonaan dad badani magacaygu waa yuusuf xaaji cabdulaahi xasan macallin ka mid a macallimiinta Soomaaliyeed ee waddanka Sweden oo ka soo qayb galay shirkan macallimiinta ee maanta Helsinki ka dhacay waan gartay marka yuusuf shirkan macallimiinta ee Helsinki lagu qabanayo haddii aad sawir guud ka bixiso maxaad soran lahayd waa barnaamijyo hore oo dabcan waxa jiri kara ee aad ka soo qayb gashay markaas barbardhig haddaad ku samayso maxaad soran lahayd uu kaga duwan yahay shirkani kuwii hore aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal Axmedow laba arrimood labadaba waan soran lahaa ama ilaa saddex arrimood saddexdaba tiro aad u badan oo macallimiina ka soo qayb gashay hadday noqoto dhinaca Sweden Norway iyo Denmark iyo Finland intaba waxa kale meesha lagu kulmayo oo meel ka baxsan magaalooyinka oo maaragtay macallimiintu ay habeen iyo dhararba wada joogayaan muddada kooban yaan alla ilaahay odhan lahaa waan gartay marka waxa jira kulamo badan oo noocan oo kala ah oo sanad walba macallimiinta waqooyiga Yurub afka Soomaaliga dhiga isugu yimaadaan maxaa laga faa'iidaa kulamada noocan oo kala ah waxa ugu weyn ee laga faa'iidaa wax weeyaan horta iyada oo khibradda waxaan la kulanaa waa ubad Soomaaliyeed waddan aynu leenahay oo maanta aynu manhaj dhammaystiran iyo qalabkii waxbarashada ka soo qaadanaana ma jiro waxa weeyaan dadkeenu nin walba isaga dadaalo oo raganimo iyo rakarooni sameeya marka ta ugu weyn ee la kala faa'iido waa khibradda ilmaha wax loogu dhigo diyaafka Soomaaliga marka dood badan ay ka dhaxdhacdo macallimiinta gudahooda ma laga dareemaa baristii marka fasalka dib loogu noqdo saameyn ma ku yeelataa baad isleedahay ha aad iyo aad muddadaas dhowr iyo 10 sanadood oo shirkani soo socday ama ururkan macallimiintu kulmayay mararka badan mar walba oo la kulmaba waxa weeyaan macallinku marka uu dib u laabto wuxuu ula tagaa dardar cusub buu caruurtii la hortagaa oo uu faa'iideeyaa ilmaha ugu dambeyntii maadaama aad tahay bare muddo ku soo dhex jiray ardayda dhigata afka Soomaaliga gaar ahaan dalka Sweden maxaa ka dardaaranaya aad u gudbin lahayd bara kasta oo arday bara luqadda Soomaaliga waxaan u gudbin lahaa horta waxbarashadu sideedaba dunidan maanta la joogo waxbarashadu maaha macallinku wadada ayuu tusaa ilmaha macallinku waxbarashadu waa guriga waa hoyga baraha waxaan oran lahaa daqiiqadaha yar ee kooban ee ilmuhu kula joogo inaad u xeel baxdo isku daydo ilmaha inaad niyada u dhisto sawir qurux badan oo ku daydana u noqoto waayo ta ugu muhiimsan wax weyn ilmuhu hadduu helo macallin wanaagsan oo ku daydo isaguna mustaqbalka wuxuu iska dhigayaa sida macallinka inuu noqdo marka sawir qurux badan oo lagu daydo iyo macallinku inuu xiriir wanaagsan la yeesho guriga si gurigana waxbarashada afka hooyo loogaga dhiso ilmaha aad iyo aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay idinku ku soo dhawow TV-ga balkeena waa mahadsantahay aan ku bilaabay marka ugu horeysa bal magacaaga magacayga fadaadaba waxaan jeclaan lahaa in ay nala arkaan ama nala dhageystaan daawadayaasha magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdicasiis Yuusuf waxaan ahay bara ka shaqeeya magaalada Stockholm dalka Sweden iskuul la yiraahdo Juris Schoolan oo ah dugsiga dhexe fasalada 7aad 8aad ilaa 9aad marka maanta waxaynu joognaa caasimadda dalka Finland ee Helsinki waa maxay qastigaad halkan u timid halkan waxaan u nimid wadamadan lagu magacaabo wadamada Yurubta waqooyi shanta ah gaar ahaan 4 jasiiradda Iceland marka laga reebo ayaa waxay yeeshaan sanad walba kulan macallimiinta dhiga afka hooyo ee afka Soomaaliga in ay ku kulmaan oo ay isu yimaadaan kagana wada hadlaan sanadkaas la soo dhaafay wixii dhacay haddii wax soo kordheen haddii wax lagu darayo marka sidaas ayaanu halkan u nimid inaynu aqoon isweydaarsi aanu ku yeelano waxaad ka dhawaajisay in طبعا ay kulama isugu yimaadaan barayaasha degan wadamada waqooyiga Yurub marka طبعا waxaan dareemi karaa in kulamadaas ay joogteen saad sheegto sanad walba la qabto kulankani waa kulankii imsaadad ka soo qayb gasho kulankan haddaan intii kulan ee la sameeyay kulli waan ka qayb galay laakiin xaqiiqiyan ma xasuusto inta hadda ay marayaan
ma 12 ba ma 12 ba ma garanayo laakiin intii kulan oo la sameeyay oo markii la bilaabay ilaa iminka waan ka soo qayb galay marka kulamada noocan oo kala maxaa lagu lafaguraa kulamada noocan oo kala waxa lagu lafaguraa waxyaabo badan marka ugu horeysa waxa weeyaan waxa lagu casuumaa dad ehel u ah aqoonta afka Soomaaliga oo aynu ka keenno dibadaha si aynu uga korsano bal maaragtay wax aqoona ku saabsan luqadayadii ama afkayagii hooyo waxaan u malaynayaa sanad kaliya mise 2 jeer ayaa waxa la qabtay in macallimiinta oo kaliya ay isu yimaadaan bal ay ayagu ku lafaguraan ay isweydaarsadaan aqoontooda dhexdooda wixii su'aalaha ay isweydaarsadaan laakiin inta kale waxa lagu casuumayay dad dibadda laga keenay iminkana de waxaba noo maaragtay jooga 2 qof oo laga keenay dibadda oo ayaguna uu ka mid yahay Saciid Saalax oo la wada yaqaano marka maadaama hadda muddo dheer aad ka soo shaqaynaysay qaabka barannimada maxaad isleedahay waa loo baahan yahay si loo horumariyo macallinka bara Soomaaligu inuu noqdo mid ardayda u reebo wax dhaxalgala waxaan isleeyahay oo aan muddo dheer ka shaqaynaynay laakiin aan la wali la isugu imaanin in la sameeyo manhaj laga midaysan yahay oo afka Soomaaliga ah oo loogu talagalay caruurta ama ardayda ku nool wadamadan waqooyiga Yurub dhowr goor baa la isku soo qaaday waa tagi waayay meel iminka anagu reer Stockholm hadaan nahay waxaan isku daynay bal inaan sameeyno manhaj yar oo noo gaara oo aan doonayno inaan fidino gaarsiino barayaasha kaleeto caalamka meesha ka joogaanba intaan ka ahayn wadanka Soomaaliya manhajkaas waanu diyaarinay laga bilaabo caruurta kalaaskoodu yahay eber laga bilaabo meesha ugu hooseysa ilaa iyo dugsiga sare kalaaska ugu dambeeya maaragtay dugsiga sare looga baxo waanu diyaarinay wax yar oo waxa naga dhiman yani qurxin ah laakiin inta kale waa diyaar marka waxaan isleeyahay wax macallimiinta oo dhan ay ka faa'iidi karaan oo macallin walba og yahay barita casharka uu dhigayo oo ardayga u dhigayo in la wada helo isla markaana haddii ardaygu ka guuro magaalada uu magaalo kale u guuro ama gobol kale waa macallinku la socdaa ardaygaasi waxa uu dhigtay iyo meesha uu marayo maadaama waqtigu inagu ciriiri yahay ugu dambaystii waxaan jeclaan lahaa in wixii dardaarana haddii ay noqonayso barayaasha afka Soomaaliga dhiga iyo guud ahaan barayaasha Soomaalida ee ku nool Yurub iyo wadamada qurbahaba maxaa dardaaran u gudbin waxaa dardaaran u gudbin lahaa waxa inaga dhaxeeya bog ama website macallimiinta oo dhan loo wada sameeyay oo la yiraahdo Tema Modshmol garan maayo inay reer Finland ku xiran yihiin laakiin in bogga lagu wada kulmo oo macallimiintu ay aqoontooda ku soo bandhigaan lana isku weydaarsado wixii fikrada iyo wixii aqoona si maaragtay la isula socdo oo loo ahaado dad maaragtay isog waxa marka meel walba oo la joogo ama bara walba uu qabo uu soo gudbiyo oo dhacaya in la wada ogaado oo la isla socdo oo la isla xiriiro oo halka aqoonta lagu kala qaato xataa duruusta lagu kala qaato taasaan u soo jeedin lahaa barayaasha aad iyo aad baad mahadsan adiga ma ku soo dhawo Balkana TV mahadsan tahay ugu horreyntii waxaan jeclaan lahaa inaad noo sheegto magacaaga iyo xirfadaada magacaygu waa Nuur Sheekh Cabdi oo ku magac dheer Aydiid waxaan deganahay magaalada Tallinn xirfadeedu waa macallinnimo oo ah luqadda Soomaaliga iyo caawinta ardayda dugsiyada dhexe iyo sare waxaan maanta joognaa magaalada Helsinki caasimadda dalka Finland marka muhiimadda in halkan joogno maxaad ku sifayn kartaa horta hore ma aha markii ugu horreysay oo aan ka qayb galo shir noocan oo kale ah waana fursad qaali ah macallimiinta Soomaaliyeed ee Scandinavian-ka ilaa iyo wadamada maxaa la yiraahdaa Yurub aan dhihi karaa maanta ay isu helaan in ay isku weydaarsadaan habkii loo horumarin lahaa waxbarashada ardaydaasoo weliba baahi aad u dheer u qaba in la caawiyo meel walba laga caawiyo ha ahaato aqoontii diinta iyo aqoontii dunida intaba kulamada noocan oo kale maxaa sidoo laga faa'iiday kulamada noocan oo kale ah waxa laga faa'iido waxa weeyaan in adigu laftigaaga ka macaan ahaan laftigaaga aad ka aqoon ka kororsato
waxyaabaha aad ka kororsataan halkan aad ula laabato macallimiinta kale aan ka qayb gelin iyo dadkii ku soo diray oo yani iskuulkii ama dadkii ku soo diray ama meesha akademiga aad ka timid inaad uga warbixisid iyo in aad la kulanto dadyo badan oo taariikh fiican ku leh ummadda Soomaaliyeed ha noqoto maxaa la yiraahdaa dhaqanka Soomaaliyeed ama ha noqoto luqadda Soomaaliya asalka ahaanteeda in ay kaaga warbixiyaan oo macluumaad aad muhiim ah ka hesho halkan ma isleedahay macluumaadka halkan ka hesha way ka anfici doonaan marka aad dib ugu noqoto dugsigii ama ardaydaada u dhigi jirto طبعا ها ادي ات وين دعدين مره بدن oo aan ka qayb galay inay iga anfaceen waxa kamid ahayd mar macallimad ka dhigta isla dugsiga aan joogo Swedish ka dhigta ayaa waxay u soo qaadatay mowduuc ahaan inay ka hadasho luqadda Soomaaliga asal ahaan markaas ilaa amarkiis waxa isku soo aaday anigoo shirkan ka tagay iyadoo mowduuca soo qaadatay marka shirki wuxuuna ahaa kankii ka horeeyay Cabdulla Mansuur Imaanay aad ay uga faa'iiday oo waxyaabo badan oo tasiirad ayaan u sameeyay oo anigana aan qoray uga faa'iidanay aad iyo aad baad hadda dareemaya ama dareenkay wuxuu yahay inaan joogo waddanka dibaddiisa ama waddanka iyan ka baxsanahay ja sen olen asunut yli 5 vuotta Vuosaaressa 5 sano ayaan deganaa xaafadda Vuosaari Vuosaarina waa xaafadda ay ajnabi ku badan yihiin mutta nyt on kaikki, onneksi kaikki olemme täällä ja seminaari pääsee alkamaan. Laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaan dhammaanteen maanta aan joognahay seminaarkeen noo furmayo. Oman äidinkielen opetus on erittäin tärkeää. Barashada luqadda hooyo aad iyo aad muhiim u tahay. Se ei ole tärkeää vain sen vuoksi, että jokaisella lapsella on oikeus oman äidinkielen kehittyä oman äidinkielen osaajana. Muhiimadda barashada waxaa kaloo dheer baa leeyahay ilmo walba wuxuu xaq u leeyahay inuu ku hadlo luqadiisa hooyo. Sillä kieli on paljon enemmän kuin vain kommunikaation väline. Luqad muhiimad weyn maxaa yeelay mustaqbalkeeni ayaan gacanta ku haynaa. Ja kokonaiseksi ihmiseksi kasvamisessa tarvitaan vanha, jo kauan sitten eläneen kasvatusfilosofin Petsalotsin mukaan kasvattaa yhtä aikaa päätä, sydäntä ja kättä. Korriimadana baa la yidhi waxaa la rabaa baa la yidhi inaan isticmaalo khibradihii horay dadkii u lahaay oo ku soo korin jireen horay annagoo korinayna baa la yidhi madaxa, wadnaha iyo jirka. Ja kun oma äidinkielen opetuksessa itse asiassa on kyse kaikkien näiden 3 tärkeän kokonaisvaltaiseksi ihmiseksi kasvamisessa alueen kehittämisestä. Luqadda hooyana baa la yidhi waxay korinaysaa 3 xubnood aan idiin sheegay ayay korinaysaa waa luqadda keliya kor soo qaada. Kieli on ajattelun väline ja kielen kautta me opimme ymmärtämään ja jäsentämään maailmaa, eli se on se meidän pää. Luqaddu waa luqadda waxa lagu fakero weeyo baa la yidhi markii lagu fakerana baa la yidhi korrimadeeda fakerkanay noqonaysaa. Kieli on myös tunteen, sydämen väline, sillä kielen kautta, oman äidinkielen kautta, sillä me yhdistymme tunteella siihen omaan yhteisöön ja toisiin ihmisiin. Luqadda waxaan kaloo aan ku muujinaynaa dareenkeena ja shucuurta. Mutta kieli on myös kulttuurin kautta mielestäni käsien tekoa. Se on sitä kulttuurin tekemistä, kulttuurin rakentamista, kulttuurista perinnön rakentamista. Sidoo kalena luqadduna waxay noqonaysaa waa dhaqankii weyn. Ja siksi aan isku fahmi lahayn weyn. Ja kun kielellä ja omalla äidinkielellä on näin suuri merkitys, niin myös teillä oman äidinkielen opettajina on erittäin tärkeä rooli tässä meidän koulujärjestelmässä. Maadaama luqadda hooyo muhiimadeena hadda aan isla garanay oo kale idinkana waxaa idin saaran mas-uuliyad weyn maadaama aad tihiin barayaashii luqadda hooyo. Somali on Helsingissä 3. puhutuin äidinkieli. Ja sitten mä olen opiskellut ja asunut Ruotsissa. Waxaan deganaa waxaan ku soo bartay Sweden. Ja Norjassa mä oon tehnyt erittäin paljon työmatkoja. Norwayna waxaan aaday safar shaqo badan baan aaday. Mutta mun on pakko sanoa tietysti paikanjohtajana edelliselle puheenvuoron pitäjälle. No ka hadal qaadanaya baa la yidhi gabadhii hadal ay tiri oo hoteelka ku saabsanaa ay tiri
ja muistuttaa myös teitä, että mitään hyvää ja ihanaa ei elämässä helpolla löydä. wixii wanaagsan oo tayada baa la yidhi si sahla laguma helo. Ja sitten toinen, niin kuin te tavallaan tunnutte minulle jo tutuilta, koska mun äiti, joka on nyt eläkkeellä, on koko elämänsä ollut opettaja. Sidoo kale arrin kale baa labadeena isku keen soo dhaweynaysa oo iyada jota waqtigan xaadirka ah howlgab ah waxay ahayd maclimad bay ahayd. Ja huomaatte, että mä en tarvitse mikrofonia ja se johtuu siitä, että meidän perheessä on vaan poikia ja mies ja koirakin on miespuolinen, eli mä olen tottunut käyttämään ääntäni. Waa u jeedaa baa mikrofon ma baahna aniga sigu ma baahna mikrofon. Waxay tiri familkayga waxay ka kooban yihiin waa niman bay ka kooban yihiin waa rag. waxaa kula jeedaa ay baa jooga aygaasna waxa weeye lab weeyaan ula jeedaa. Sidaas daraaddeed aad baan u bartay inaan kor u hadlo mar walba. Ja nyt Sofiaan. Eli Sofia on kongressihotelli, kokoushotelli ja myöskin lomahotelli sekä kulttuurikeskus. Meeshaan joogno Sofia la dhaho waxa weeye waa hotel lagu qabto konferensada lagu qabto ama shirarka lagu qabto waa hotel lagu qabto safarada ama dalxiiska lagu qabto oo kale. Sidoo kale waxay tahay meel dhaqan harun dhaqan way tahay. Mä en enempää kerro tästä paikasta, koska te olette täällä majoittuneet, nähneet meidän kokoustiloja ja ruokailleet. Mutta paikanhan tämä on aikoinaan ollut Osuuspankkiopiston koulutuskeskus. Hotelka wax badan kama sii sheegayo maxaa yeelay waa degteen oo waana joogtaan oo kale. Laakiin halkan waxay ahayd bangi la yiraahdo Osuusbank ayaa jiray ama isku tagga bangiga dadka isku tagay ay samaystaan oo kale. waxay ahayd meeshii xaruntoodii ardada ama maxadkooda ay ku bari jireen. Ja Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö osti tämän paikan 5 vuotta sitten. Kaniisadda ortodokska ayaa gatay 5 sano ka hor meesha. Ja meillähän on täällä hiljentymisviikonloppuja, meillä on erilaisia seminaareja, meillä on joogakursseja ja myöskin ikoninmaalauskursseja. Ja meidän erikoisuutena on se, että meillä on täällä oma kappeli, joka on tässä ensimmäisessä kerroksessa. waxyaalo badan baan ku qabnaa shirar badan baa lagu qabtaa weynligana badanaa waxa weye waa yara degan tahay meeshu. Sidoo kale waxaa lagu qabtaa ciyaaraha jimicsiga marka la yoga oo kale ayaa lagu qabtaa. Waxaan kaloo jag får möjligheten att komma hit och prata idag. subax wanaagsan dhammaantiinba oo aad baan idinku mahadnaqayaa dadkiina halkan sida fiican u qabanqaabiyey. aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan ka hadlo maanta. I Stockholm. Jag har arbetat med frågor om modersmålsundervisning i 10 år. anigu magacayga madsmen marka wasaaradda waxbarashada ayaan u shaqeeyaa arrimaha khuseeya afka hooyo ilaa 10 sannadood ayaan wasaaradda ka shaqeynayay. Jag tänkte att när jag nu får en stund och berätta för er om modersmålsundervisning, studiehandledning och modersmål i förskolan i Sverige, så tänkte jag att jag skulle backa tillbaka lite grann och prata om vad har hänt tidigare. haddaan rabo inaan wax yar idinka sheego dhigidda luqadda afka hooyo ama luqadaha afka hooyo iyo in lagu taageero carruurta duruusta lagaga caawiyo marka xoogaa ayaan rabaa inaan dib u noqdo buu yidhi. Och för att kunna göra det så måste vi backa tillbaka mer än 20 år. Vi måste tillbaks till slutet på 1980-talet, 88-89. Då började den svenska staten att möta människor med somalisk språkbakgrund och försökte att hjälpa dem att komma igång med modersmålsundervisning. haddii aan gaar u eego Soomaaliga luqadda afka Soomaaliga waxay waa inaan 20 sano dib loogu noqdaa ilaa 88 laga soo bilaabo xilliga lagu qiyaasay ilaa iyo maanta Sweden. markaas ayaa ugu horeysay in kulan lala sameeyo ama ay yimaadaan dad afka Soomaaliga ku hadla. marka haddii la rabo in laga hadlo arrinta waa in 20 sano dib loo noqdaa oo halkaa laga soo bilaabo
sidii wax loo qabtay iyo halka laga soo bilaabay. Och då fanns inte internet, men däremot så fanns det många duktiga människor som kom hit och som ville göra material. Så tillsammans med en kollega till mig som heter Maj Beijer så började man att producera material i början på 1990-talet. markaa wuxuu yidhi ma jirin internetkan hadda lagu xidhiidhaa hadda maanta jira beriga laakiin waxaa jiray buu yidhi dad yimi oo dad xarfaana oo rabay inay wax qabtaan oo rabay inay ama dadaalaya oo rabay inay wax qabtaan dadkaasina ay isku dayeen gabadh aniga iga horreysay oo ka shaqaynaysa Maj Beijer la yidhaahdo ee la shaqeeyeen waxayna isku dayeen inay soo saaraan qalab fara badan oo idinku maanta aad ogtihiin ayay sanadadii ilaa 90-yadii wax ka dambeeyay ay soo saareen. Jag tror att den första läroboken på somaliska i Sverige, den trycktes 1992. buuggii ugu horreeyay afka Soomaaliga ee Suudaan lagu daabaco 29 ayaa la daabacay oo laga baranayay luqadda afka Soomaaliga. Och vill ni läsa mera om vad som har hänt tidigare så rekommenderar jag den bok som ni ser som heter Mest språk. Den finns på tema modersmål som PDF om ni vill ladda ner den och bara läsa om det somaliska. Waxaa jira buuggaas halkaa ku dhegan oo ay gabadha magaceeda sheegaya Maj Beijer ay qortay ayay isku kooban yihiin taariikh ahaan waxaas markaa buuggaas waxaad ka helaysaan buu yidhi bogga wasaaradda waxbarashada ee qaybta teema modersmålka markaa qaybta dee buuggoo dhan uma baahan inaad akhrido laakiin qaybta Soomaaliga iyo siduu horumarku soo sameeyay halkaasaad ka akhrisan kartaa waad kala soo bixi kartaa. I den där boken så står det